السلام الله عليكم برنامجkan waxaan kaga hadli doonaa insha Allah qaraxii mataanaha 11kii bishii sagaalaad ee lagu weeraray dalka Mareykanka 2001 waa muddo hadda laga joogo 20 sano insha Allah barnaamijkan waxaan u qaybin doonaa 3 qaybood maadaama uu dheer yahay kagamana hadli doono qaraxii dhacay qasaarihii ka yimid laakiin waxaan kaga hadli doonaa qaabkii loo soo abaabulay cidii abaabushay iyo meeshii laga soo abaabulay fiiro gaar ah qaraxii dhacay cid gooni ah oo anagu aan ku eedaynayno ama aan leenahay dadkaas gooni u lahaa ma jirto sababtoo ah midan waa mid maskaxdeena ka weyn maadaama ay maskaxdeena ka weyn tahay ilaahay ayaa og xaqiiqada laakiin waxaan diiradda saaraynaa oo kaliya macluumaadyo sirdoonada caalamka ugu waaweyn laga helay oo ay soo bandhigeen iyo siro badan oo fashilmay muddo 20 sano kadib waxa kaloo aan ka soo xigan doonaa oo inta ugu badan waliba aan ka soo xigtay dad wariyaal caan ah oo islaam ah oo waliba ugu caansan yahay wariyihii Yusri Fawdi insha Allah barnaamijkeena nu guda gali doonaa waxaanu barnaamijku qaadanayaa inaanu fahanno marka hore inaanu qaabkii u bilaabmay aanu ka soo sheekayno okay sheekadeenu waxay ka bilaabmaysaa dalka Jarmalka qaasatan Hamburg oo ku taala waqooyiga Jarmalka waa magaalo xeebeed leh dekada ugu weyn dalka waxa ku yaala jaamacadaha ugu wanaagsan caalamka safarka shirqoolkii burburka saaraha Mareykanka waa meesha uu ka bilowday Hamburg sagaashamaadkii waxaa timid arday muslim ah oo ka soo kala jeeda wadamada Carabta ardaydaas waxaa kamid ahaa Mohammed Ada Ramzi bin Shayba Marwan al-Shahi Ziyaad Jarrah iyo Mohammed al-Salahi okay inta hadaynu isla fahanay dhammaan magacaan kor ku soo sheegnay xasuusnaada mid aynu u dul istaagi doonaa wayna nagu soo noqon doonaan maadaama ay qisada gundigu yihiin waxaanu soo qaadanaynaa Mohammed Ada qofka koobaad ninkan wuxuu ahaa aad maskaxdii ka dambeysay in la fuliyo qorshihii Manhattan ee labada dabaq ee saraha Mareykanka lagu qarxinay sababtoo ah ninkan wuxuu ahaa ninkii kaliya isku xidhayay unugyadii argagixisada ee kaas asnaa Jarmalka ardaydii waliba oo soo kamid ka ahaa Afghanistan tabarka ku soo qaatay ilaa iyo Pakistan akhirtaankiina ay Mareykanka isku qarxiyeen ninkan caadiyan wuxuu ka soo jeedaa Mohammed Ada qoys Masar oo Masar buu ku dhashay dad wuxuu ka soo jeedaa xaafad oo aad wax u baratay oo xataa dhaqaalahaan iska roon asaga laftirkiisu wuxuu bartay oo ka qalin jabiyay jaamacad oo engineering ya shahaadada heerka labaad buu haystay Qaahiro ka qalin jabiyay waqtiyadii markaa jaamacadda Qaahiro ka qalin jabiyay ayaa waxa uu helay fursad waxbarasho oo Jarmalka ah kabacdi wuxuu wadanka Jarmalka yimid 1992 isagoo waxbarasho ka helay magaalada Hamburg University of Technology diitole waqtiga uu ardayga ahaa waxa inta badan ka soo baxay calaamado oo dadkii waqtiga ka garab dhawaay ka yaabeen maadaama uu aad u dhaliili jiray habdhaqanka iyo siyaasadda reer galbeedka wuxuuna u nici jiray Yuhuudda waa sida ay u sheegeen ardaydii la dhigan jirtay waqtigaas iyo macallimiintii wax u dhigi jirtayba Mohammed Ada intii uu joogay Hamburg waxa uu qabtay shaqooyin qaybta technology-ga ah oo shirkado badan oo kula shaqeeyay sida dadkii ka garab dhawaay sheegaan xataa macallimiintiisu waxay ku tilmaamaan inuu ahaa nin aad diinta islaamka ugu adag isagoo ay inta badan xataa ay ku sheegi jireen inuu ahaa nin aad u aqli badan oo daraasaadyo fara badan sameeya daraasadyadu sameeyay oo inta badan oo faqarayaasha ka sheegi jiray waxa kamid ahaa in Yuhuuddu tahay dadka caalamka gadaashiisa ka maamusha siiba dhaqaale ahaan warbaahin ahaan iyo hay'adaha siyaasadeed ee ku yaala magaalada New York bishii Agoosto 1995 Mohammed Ada wuxuu ku laabtay dhulkiisii hooye ee Masar 3 bilood safar qaatay kabacdi wuxuu ku soo laabtay Jarmalka walow sirdoonada qaar ay sheegaan in awsan 3 bilood ku maqnayn Masar taabadalkeega uu aaday Afghanistan si uu tababar ula qaato ururka Al-Qaacida bacda tababarkii ama inuu Masar tagayba markii uu ku soo laabtay dalka Jarmalka wuxuu bilaabay inuu masaajidka Al-Qudus ee ku yaala magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka oo ka mariyo cashiro oo casharadaas oo marka diiniya inta ka bacdi waxa la sheegaa inuu waqtiyada uu aasay seelkii loogu magac daray Hamburg Seel
waqtiga marka masaajka inta badan waxay aad isugu dhawaayeen oo ay saaxiiba noqdeen Ramzi bin al-Shayba iyo Ahmed Maklet iyo Munir al-Mutasaddiq 11 Abriil 1996 Cada waxa uu qoray dardaarankiisii bacda al-mawt taasoo uu kula dardaarmayay ehelkiisa iyo dadka asxaabtiisa in ayna ooyin marka uu dhinto dardaarankaas waxaa soo saaray oo banaanka soo dhigay sirdoonka dalka Jarmalka dardaarankaas oo kula seexnaa Mutasaddiq marka waxa ka cad halkaas inuu diyaar u ahaa inuu isqarxiyo xagaagii 1997 Maxamed Cada waa la waayay mana soo laaban ilaa laga gaaray 1998 soo laabashadiisi wuxuu ka wareegay guriga jaamacaddu siisay waxa uuna u wareegay ragii ay unuga wada asaaseen ama unuga Hamburg wada asaaseen oo kamid ah Ramzi iyo Ziyaad Jarraax waxaana sameysteen amiir iyagoo maalin kasta maalintii 3 jeer kulmaya kana wada hadlaya dareenkooda ku aadan ama ku wajahan Mareykanka siday ku gali lahaayeen iyo siday ku qarxin lahaayeenba guriga waxa kaga sii horeeyay iyaguna laba nin oo kamid ahaa iyaga unugo kamid ah oo Marwan al-Shah iyo Zakaria Zobar oo iyaguna kamid noqon doona mishinka la isku qarxin doono diyaaradaha kuwaasoo gali doona dabaqyadii mataanaha iyo waliba xarunta Pentagon-ka ee dalka Mareykanka looga armiyo dabayaaqadii 1999 Maxamed Cada Ziyaad Jarraax iyo Ramzi waxay go'aansadeen inay mar u safraan dhankaas iyo Shishaan si ay uga hortagaan Ruushka oo ay kula jihaadaan laakiin arrinka waxa ka biyadiiday daqiiqadihii ugu dambeeyayna ku qanciyay Khalid al-Masr Maxamedu Saalixi inay bedelaan qorshahooda ardul Shishaan una bedelaan safarka ilaa Afghanistan waxay ku qaadatay muddo 2 asbuuc ah inay u soo safraan ilaa Afghanistan si ay tababar u soo qaataan hogaamiye al-Qaacidi xubin al-Qaacidi ah oo Maxamed Catif ayaa wuxuu u gudbiyay lister oo kaga hadlayo inuu la kulmay dhalinyaro u sharaxan kuna habboon qorshaha howlgalkii 11 Manhattan dhamaantood waxay ahaayeen kuwa si fiican wax u bartay khibradna u leh inay la dhaqmaan ama ay la jaan qaadaan reer galbeedka Maxamed Cada iyo Marwan Shaahi Ziyaad Jarraax saddexdoodaas waxa loo diray guri Ghamdi oo u dhow guriga Osama bin Laden oo galo gurigaasna waxay kula kulmayeen isla Osama bin Laden oo siinayay waxyaabo waana ah iyo inay balan ka qaadaan ay oofiyaan balantiisa oo daacad u noqon doonaan qorshahan 11 Manhattan dardaaran iyo ballanqaad kadib Osama wuxuu saddexdii wiil ee reer Hamburg u diray caatid si ay u helaan dulmar guud oo ku saabsan howlgalka Manhattan kadib waxay u sii gudbeen oo loo sii diray Pakistan magaalada Karachi si ay u arkaan Khalid Sheikh Mohammed oo lagu tiriyo inuu ahaa mind masterkii ka dambeeyay inuu qorsho u fulo sidii la rabay baarayaal Jarmal ah ayaa sheegay inay cadeymo buuxa ka hayaan Maxamed Cada inuu tababar ku soo qaatay xerihii al-Qaacida dhamaadkii 1999 ilaa 2000 Ulrich Kirsten wuxuu ahaa agaasimaha koortaga dambiyada ee dalka Jarmalka waxa uu soo bandhigay cadeymihii ugu horeeyay 2002 hal sano kadib dhacdadii 11 September wuxuuna ku xaqiijiyay cadeyntiisa in laba kamid ah isqarxiyaashii Maxamed Cada iyo laba kale ay Hamburg ka duuleen ilaa Turki ilaa iyo Pakistan ilaa iyo Afghanistan waxa kale oo eedna jirto aan ku xasuusinayaa daawade in muuqaal soo baxay 2006 muuqaalkaas oo qaybtiisa hore waxa ka soo muuqda hogaamiyihii al-Qaacida Osama bin Laden oo beerta Tarnaaka jooga halka qaybta labaad ee muuqaalka ay ka soo dhex muuqdaan Maxamed Cada iyo Ziyaad Jarraax oo akhrinaya dardaarankoodii 10 maalmood kadib Janaayo 17keedii Maxamed Cada iyo labadii kale waxay ka tageen Afghanistan waxayna yimaadeen Jarmalka saddexdoodiiba waxay ku andacoodeen in oo baasaboorkoodii ka lumay si dalku galka fiisahan loo arkin inay Afghanistan iyo Pakistan galeen kabacdi waxay sameysteen dalku gal fiisa cusub baasaboorkoodii waa loo cusboonaysiiyay barnaamijkeenan qaybta koobaad maanta intaas inoogu dhan tahay insha Allah qaybta labaad mar dhow aan soo gelin doonaa hadda ka heshay barnaamijyadan oo kale like isaar dhiirigelin bay noqonaysaa haddaad igu soo bartidna kaba si fiican mahadsanid walaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh